goordhaweed magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax uu ka dhacay meel u dhow taalada xawataake ee magaalada muqdisho haddaba wariyeen iqra cabdirasaaq ayaa qodobkan inoo eegeyso qaraxani oo ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayada lagu magacaabo dalsan oo ku taala meel u dhow taalada xawataako ee magaalada muqdisho goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku yaala kontarool ay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ka ilaaliyaan madaxtooyada Soomaaliya isla markaana gawaarida lagu buubiyo wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in gaariga qarxay la dhigay goobta uu ku qarxay waxaana inta badan istaaga gawaarida ku wajahan dhinaca madaxtooyada iyada oo markaasi qofka wata uu ka soo dago kadibna uu soo aado kontaroolka ciidanka si uu u tuso kaarkiisa aqoonsiga kadibna uu sidaasi u gudbo xiliga uu qaraxa dhacayay ayaa goobta waxa ay ahayd mid mashquul badan waxaana ku yaala goobo ganacsi oo kale sida maqaaxiyo shaax laga cabo goob timaha lagu jarto waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo uu qaraxaasi geystay walow wali si rasmi ah aana loo shaacinin gaadiidka dhinaca godka jilac oo ka soo gali jiray madaxtooyada ayaa haatan la joojiyay gabi ahaan waxaana goobta soo gaaray gawaarida gurmadka degdega ah si ay markaasi ugu gurmadaan dadka waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa ku soo badanaya todobaadyadani qaraxyada istaba joog ah walow dhagaha dadka ay wali ka sii yeerayso qaraxii dhawaan ka dhacay hotel UK ee ka soo horjeeday wadada Maka al Mukarrama